waa hagaag dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii bandhiga barbaarta waan hubaa inaad daahsateen in badan waqtina aan idinka luminay hase yeeshee qolada Nairobi ayaa barnaamijka dhankaasi doonaya markii hore inay ka daadihiyaan hase yeeshee waa ka xogna haddana waa ka soo ceshanay waxaan markaa barnaamijka rabaa in idinla socodsiiyo idinkoo inkastoo waqtigu iga sii dhammaaday Ibrahim Geedi Cawaale Super Bibo ayaa barnaamijka marti ku ah cawaale isboortigaad ku taqaaneen laakiin muqdisho soo gaaray in cabaaraba ku warwareegay xagga iyo xagga waa tagay habeen madow xataa waan ku arkay isagoo liida jooga isagoo salax ku cayaaraya isagoo ciyaalka xaafadda la jooga in badan marka waxyaabihii uu ku arkay muqdisho waqti dheer baa ugu dambeysay sidaan qiyaasay waa idin weydiin doonaa barnaamijka marka isaga marti uga calaa kulli xaal waxaan rabaa marka hore heesta qalalaasa dagaal inaan idin siiyo kadibna aan u laabto Ibrahim Geedi Cawaale oo barnaamijka marti uga mahadcelinaya waqtiga uu na soo siiyay barqadan barnaamijka sidaad idinkugu sheegay waxaa marti noogu ah Ibrahim Geedi Cawaale Super Bibo isagu markaa ka mid ah barkulan laakiin muqdisho mar hore ugu dambeysay wax badan la soo indheeyay geedi ku soo dhawo barnaamijka waa mahadsantahay Cabduqaadir waana ku dhowahay adiga iyo dhammaan dhageystayaashana waan salaamaya aye muqdisho goor waa ugu dambeysay Cabduqaadir muqdisho waqti badan iguma dambeyn haddii si loo fiiriyo marka dhinaca kale laga fiiriyana isbedelka ka muuqda markii la fiiriyo waqti badan ay ugu dambeysay dhamaadkii 2007 ayaan ka tagay waa 6 sano 6 sano maxaa isbedelay walaani wax badan ayaa isbedelay oo waliba isbedel buuxo 80% la oran karo sidaan ku ogaa magaalada marka loo fiiriyo xilligan oo magaalada muqdisho isbedelka si kooban hadii aan u sheego muqdisho markii horeba dabcan xilidan burburka oo sakashamiidii ka dambeeyay waan ku aqliyaysanayba hal dhinac u shidneed hal dhinacna waa ka dansaneed hadda 6 sano aan maqnaa hadii aan ku soo laabtay dhinacii shidnaaya damay dhinacii oo dansanaana dabcan wuu shidmay oo hadii aan ku sii fasiro laamiga wadnaha wixii hadda dhinacaas ka ah oo ilaa iyo kor ka jira ilaa warshadaha waa la degan yahay laakiin sidii ahaan jirtay oo aan ku ogaa magaalo ahaan ma aha marka dhinacan kale loo soo gadoomo oo Maka al-Mukarrama iyo Xamarweyne iyo dhinacan kale oo horey u ahaa jirtay meelo burbursan oo ganacsiyo badan aysan ka jirin guryo iska raqiisa hadda waa magaalada qalbadeeda oo meesha kaliya hadda magaalo lagu tilmaami kara ah magaalada marka waa bilcagsi oo dabcan isbedel weyn ayaa dhinacaasi ka muuqda marka loo fiiriyo 6 sano gudahood in ay sidaasi oo dhan ay u noqoto wixii dhinacaas ku ogeed hadda in dhinacan laga helayo hukun caday baraal ciyaaraya marka maxaa ku soo jiitay wax badan ayaa soo jiitay waxa ugu weyn waxa way horumaraya magaalada ka jira oo dhinac kasta ah marka la fiiriyo 6 sano ka hor waliba magaalada hadda waxa ay la jaan qaadaysaa adduunyada kale magaalooyinkooda waaweyn ee caasimadaha ah ani xilligaas oo dhan waxaan ku noolaa magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya oo aan marna ka bixin marka laga reebo safar gaaban oo isla dalka Kenya gudihiisa aan ku tagtagay marka horumar badan oo magaalooyinka kale ee caalamka ka jira ayaa hadda magaalada ka jiro adeegyo badan ayaa ku soo kordhay oo aanan jirin xilligii hore waxaana taasi sabab u ah dadka magaalada ku soo laabtay oo fikrado la soo laabtay oo dhaqaalena la soo laabtay taasi oo keentay in marka la abuuro wixii magaalada ka maqan dhibka ugu weyn ee magaalada ka jira oo amniga hadii amniga la helana wax walba ay socon karaan marka dhismayaasha la fiiriyo ganacsiga casriga ah ama qaayadaha waaweyn oo weel class amal ah baabuurta oo aad u soo farabadatay sidoo kale takaasiyada jira adeegyada dhanka isgaarsiinta oo si casriyoobay marka waxyaabo badan ayaa soo jiitay oo horumarka magaalada ah oo dhinac kasta ah oo dabcan la dhihi karo magaalada dhinac kasta way ka horumartay xogaa hadii amni kale la sii helana waa ay sii horumartay saxaafadda waxyaabaha ugu badan ee horumaray ay ka mid tahay adqaanta magaalada markii aan ka tagay waa ay yaraayeen warbaahinta jirtay magaalada xilligaasi oo 2007 kulay burburka ayaa bilowday idaacadahana waa ay koobnaayeen wargeysadana sidoo kale website-yana kulay website-yada hadda qurbaha lagu bartay oo inta badan dadka dibadaha jira ay isticmaalo hadda ilaa hadda magaaladan dadku kuma xirna in website-yada war ka helaan amaba ay aad ugu xirnaadaan laakiin
aad ayay u horumartay 80% warbaahinta oo ilaa iyo dhowr iyo 20 idaacadood ayaa magaalada ka furan. waxaa jirta in ay soo bateen telefishinadii oo la iska arkayo oo xilligaasi 6 sano ka hor waxaan rajaynayaa haddii aanan qaldanayn in hal telefishin uu jiray oo Soomaali ku hadla. marka dhinac kasta ay ka horumartay oo 20 iyo dhowr idaacadood oo magaalada ka wada furan oo si official u wada shaqeeya, wariyaashooduna ay wada shaqeeyaan, wargeysiyo ay jiraan, telefishinno ay jiraan oo waa dabcan waa magaalo si weyn u horumartay. saxaafadan waxay ka mid tahay waxyaabaha dalka horumariya kuwa ugu horeeya ama dib u dhac hadduu imaanayana dib u dhac keena. marka saxaafadeena 100% waa ay horumartay Cabdiqaadir oo dhinacyada marka la fiiriyo horumarka xataa qayb weyn ka qaadanaysa iyo amni in dalka uu sii helo. habeenka ma socotaa? dabcan marna waa socdaa marna ma socdo oo hadda 2 toddobaad ku dhawaad ayaan joogaa. habeenkii magaalada dhinac waa laga socon karaa, dhinacna lagama socon karo Cabdiqaadir sidaa la socotidba. laakiin dhinacyada laga socdo oo laamigan dheer Makaal Mukarrama ilaa iyo Xamarweyne ilaa dhinacaas Waqooyiga Muqdisho waxaa waaye waa habeenkii waa la socon karaa. marka dhowr habeen waan socday laakiin dhowr habeenna ma socon oo xaafadda ayaan iska joogay. laakiin waa magaalo habeenkii la socon karo, magaalo ilaa habeenkii 4 saac 5 saac shidan, maqaayado furan, adeegyo la heli karo, baabuurtii socdaan, wadooyinka aysan xirneen oo ilaa habeenkii madiinta ka tagto suuqa xoolaha waa tegi kartaa dabcan haddii aadan cabsi aysan kugu jirin gaarina aa wadato. marka waa magaalo habeenkii dadku ay socdaan. aniga shakhsiyadeeda marka laga reebo dadku waa hay socdaan habeenkii oo wax jijiif ma arkaysid xilligii hore marka loo fiiriyo 6 sano ka hor gobol ku dhaco waaga hore. cuntadii kugu yaabka badneeda cunto maxay ahayd inta taga? horta Soomaalida cunto ahaan waa iska dhaqan ahaan oo cunto ahaan uma horumarto. horta markii adoo la jibsi halkan waa laga helaa. waxyaabaha horumarka keenay ka mid tahay intii aan joogin halkaasi Nairobi amaba meelahan kale lagu bartay jibsiga cunto Soomaalida hadda inta badan ay heli karto ma ahayn marka loo fiiriyo agab ahaan iyo dhaqan ahaanba. mana u malaynaynin in hadda Muqdisho xilligaas iyo kale habeen ah in jibsi laga heli karo, laakiin waa raadiyay ugu dambeyntiina waan soo helay oo dabcan Nairobi waa cuntada koowaad ay ka taadisan labaad iyo saddexaad. sabab Nairobi bal iga waran maxay sabab jibsigu ka uga yahay? wallahi environmentiga bulshada ku nool waa ay ku bedelayaan kulay. waa magaalo jibsiga aad looga xiiseeyo. dadka halkaas jooga dad caajiso ma rabaa inay wax karsadaan. halkan waxbaa la digsiga dabka la saartaa, jibsi bay rabaan iska cunaan halkaa. jibsiga waa cunto iska diyaarsan laakiin cunto kariska xaggaa dadka dhalinyaradu ku badan tahay oo inta badan wax lama kariyo, laakiin waa cunto iska fudud haddana vitamins ama proteins badanna leh oo ku hayn karta. Muqdisho markaa ka tagaysa xagee ka deganeed? waxaan deganaa Calikamiin xaafad la yiraahdo degmada Warta Nabadda. waa tagay dhowr mar waa tagay. waxa waaye waa magaalada dhinac kastoo la tagi karaa dabcan oo waa ay shidan tahay, laakiin inta badan ba dhaqdhaqaaqa mararka qaar waa iska yar yahay, laakiin waa magaalo la tagi karo oo hadda dadka aad u degan yihiin oo familki iyo weli ma aragtay dad kale labiskaaga dad la yaaban? maya, sababtoo ah meesha aad joogto siday u labisantaha loo labistaa. Muqdisho inta badan dhex xirashada ka war? dabcan aniga dadka yaqaano adiga waa taqaanaa kulley magaalada dhinaca lagugu mashquulayo waa jirta haddii aad dhexda xirto indho badan ay kusoo eegayaan. dhinacna waxaa waaye waa dad oo noocaas u badanaaba joogo aan lagugu mashquulaynin. marka waqtiga aad reero kubad baa ahayd. kubad ma ciyaartay hadda? si fiican. waxyaabaha aan ka cilbaxay ka mid tahay kubadda. waxyaabaha horumarka keena waxaa ka mid ah salaxyo badan ma jirin Muqdisho xilligan ka tegay. waxaa laga yaabaa tayr weyn hadda la oodayo lagu qoray calaamadihii wixii banooniga salax roog la dhigayo. waxaa jiri jiray Olympic Fitness Center Cabdiqaadir adiga waa ogtahay markii magaalada ka tegay. waa habeen in la ciyaaraan waa yareed xilligaasi oo mid Xamarweyne ku yaala mid ku yaala General Daud oo kaliya rajeynaya in habeenkii lagu ciyaari jiray. ma jirin marka salaxyo kale ma badnayn haddii ay jireen, laakiin hadda magaalada dhan waa wada salax. qofkii 2 boos lahaaba uu ootay, 2 nalo ku dhajistay, 2 biro dhigtay. su'aal ku weydiina dadka Muqdisho ma istiri dad wada caayilay oo baa u timid? aad u weyn hadda rag badan waa ku arkay atooraha uu ka mid yahay Nairobi isku naqaanay nimco ay ka mid tahay nimco Xasan Cabdi
waa la wada cayilay meesha waxaa waaye aniga xataa hadda isbedel banaa iga muuqdo 3 kiilo ay ugu kordhay halkan dagaal iyo waxbaa ka socda watan la yiraahdee waxaa kamid ah horta dagaalka waa lala qabsaday oo dadku caadi ula qabsadeen oo hadda qof dad muqdisho joogay 6 sano la soo dhaafay dagaal ama xabad inay ku tahay ama dib u keenayso uma maleynayo laakiin magaaladan waa magaalo iska barakeysan cunto fresh iska taalo qudaar fresh dadkuna familkiisu la joogo qof walba degan yahay oo habiiskiya laakiin halkaas sorry waqtiga ay ilaaday isku soo laabanayna tora haye waa hagaag si soo noqod wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan barnaamijka inta iminka nagu soo biirtay haddaan mar kale idinkugu celiyo ibraahim geedda cawaale suberbibo ood cayaaraha ku taqaaneen ayaa barnaamijka marti noogu ah innagaa maanta ismarti qaadnay haddaan hore dad badan usoo marti qaadi jirnay waa barkulan oo idin hor fadhida oo marka aad rabaa inay barnaamijka bandhiga barbaarta aad su-aalo kusoo weydiisaan nimcana waa nagu soo biirtay nimco ka waran nimcaan rabaa inaan su-aasha koowaad weydiiyo sosbal nimca haye soo dhowo barnaamijka soo dhowo nimco waan ku dhawaa dulyar biiba maxaad weydiin lahayd horta biiba marka ugu horeyso maadaama aan kaga soo horeeyay magaalada muqdisho oo aan isla joogno magaalada nairobi waxaan dhilaha horta marka koowaad kusoo dhowo xamar teeda kale su-aashaan weydiinayo waxaa ka mid ah haddaad waxaa weydiisay inuu tegay xaafadii uu ku dhashay wardhiigle siduu sheegay asiga marka waxaan dhihi lahaa iskuulkii alkhazaali uu dhigan jiray inuu booqday in kale aan dhigan jirnay miya hore waa ugu sheegay cabdiqaadir sababtoo magaaladii waxyaabaha laga waayo waxaa kamid a bareefadiyada xilligaasi dhinacaasi washington wadada 30 sida hadda Makka al-Mukarrama oo kale ay tahay al-Ghazali al-Abadiri barafidyo badan oo dad badan ay dhigan jireen hadda dhinacaas waxaan ku arkay afarta jardiini iyo wixii ka dambeeya ayaa dhowr xaba ka jirta oo iskuulada noocaas ah laakiin dhinacaas hadda warkaas ma jira al-Ghazali iyo waxa guriyihii dhamaan waxaaba arkayba oo wadooyin laga furfuray oo ma aqoonsan kartid xataa iskuulaadkii marka nimco waxaan dhihi lahaa dib ha loo soo celiyo barafadiyadii dhinacaasi si magaalada dhinacaas mar kale uga shidanto waxaan rabaa inaan galo facebooka igadaa cayaarta igadaa jacaylka dhibka ah nin ka dhigtay ciwaan kolley oo jooga boosaaso oo la yidhaha ibraahim kuusow alcadaala ayaa waxa uu leeyahay magaalada muqdisho aad baan u salaamaya barkulan ibraahimna waan salaamaya waxaan weydiin lahaa sidaan la soconno muqdisho isbedel weyn ayaa ka dhacay marka dhallinyarada qurbaha ku maqan ma la odhan karaa dalkooda hooyo waxbay ka qaban karaan sida waxbarashada iyo ganacsiga aad baadna idiin wada salaamaya dhammaantiin haye ibraahim ganacsiga iyo waxbarashadii balka war maxay qurbo ka hayaan magaalada inta badan ba hadda dadka dhaqdhaqaaqa ka wada inta badan waa dadkii qurbaha oo ka yimid dhalinyaro ha ahaadeen waayilan ha ahaadeen oo nooc walba isugu jira marka ayaga ayaa hormuud u ahbaa in magaaladu ay soo korto oo waxbarashadii qaabkii casriga ah oo hadda iyo sidoo kale ganacsiga casriga ah oo la keenay hadda magaalada oo xataa jibs lagu dubayo marka waxaa waaye qurbaha ayaaba mas-uul ka ayaan dhihi karaa jibsiga waabana wareeriye nimca dulyar wuxuu aaminsanaa in magaalada muqdisho aan gabi ahaanba laga helin jibsiga marka qof walba waxbay ugu dhegtaa maqaayad walba wuxuu leeyahay sida wax oo research ku sameynayo kale jibsi ma yaala marka hala yaabin marka hadduu jibsiga ku dheg hal maqaayad aad ismaraan joognay halka jibsiga Nairobi ka cunaysaan tibsi aan cunayna tibsi waxa weeye canjeerada iyo weyn iyo maaragtay hilib shiidan iyo ay soo xasuusinayeen dad badan dhageysanaya waxa laga yaabaa in jibsiga xataa aysan fahamsaneen Cabdiqaadir jibsiga horta cunto kala ma waa baradho oo intii la jarjaray ee la dubo laakiin dhibku waxa keenay dhibku waxa keenay baradho kini iyo xamra ku badan laakiin qalabka la isku haystaa qalabkii lagu dubi lahaa makiinadihii mishiintii korontadii waxyaabahaas keenay markii culays noqoto aysan magaaladan ku badnaanin xaggana number 1 ay ka tahay waa cuntada koowaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyarada maxaa kaaga baxay ee magaalada joogaad la kulantay iyo xisaabtaada dhalinyarada magaalada joogta dhalinyaradu waa dhalinyaradoodii oo kuwii hore iyo kuwii dambe isbedel ma hal isbedel ayaa jiro dhinaca gabdhaha oo gabar wajigeeda furiyaha ma arkaysid
kulli indhashareer ayaa la wataa arrinka muxuu ah laakiin nimcahay waxaa jira boora magaalada ku badan markaas laba mar siyaa la ii sheegay markii aan weydiiyey boorkaas nimco sheegayso ayada xataa way xirataa hadda iyo security lagu leeyahay qof walba ma aqaan securityga waxyaaba hadda cajiibka anigu aan la yaabo waxaa ka mid ah markaa socoto gabdhowr ha lahaadaya gabaraa laga yaabaa indhashareer qabta ama laba indhashareer qabta inay kaa hor timaado ayagoo indhahay kugu soo gubayaan adiga waa yaabaysa waa naxaysa waxaa leedahay maxaa jira ma taqaanid qofkii laakiin waxaad dareemaysaa in aad lagu fiiriyey way ku taqaanaa markaasoo kale waxaa laga yaabaa in lagu yaqaano mana taqaan marka indhashareerkan xal ma loo heli karaa isla xilligii hore ma jirin indhashareerkan faraha badan waxaa laga yaabaa dad gaar inay xiran jireen ama dhif ah hadda style noqday laakiin hadda gabaraan jira wadan dabcan magaalo maada ayaan malaynayaaba nimcahay nimca sababaha ugu weyn indhashareerka loo xirto marka boorka laga soo tago magaalada muqdisho loogu xirto xitaa busta marka aniga ayaa xilliga boorka qaarkood oo xiranay in foodo oo meelaha ragga ku badan markay maraa in la foodeeyo camal ay ka dhumanayso dadka oo rijaalka meesha ay joogaan in ay gudubto camal laga yaabo xataa markay gudubto in iska furto okay super waxaa lagu soo weydiiyey adiga horta sidaada cayaarahaad aad ugu fiican tahay lagu naadigee taageertaa nimcaye nimca waa ku taqaanba adiga nimca maya dadka nimca amaan afkeeda waxaa ku badnaa arsenal aniga AC Milan taageeraa ingiriis premiershipka Everton Robert Martinez ninkaas tababarahaas waxaa waaye okay nimca oo Arsenal ay kugu dhigantahay nimca amaan ayada Arsenal ay ku qabsatay sababtoo ah magacaas uu ku batay oo Nairobi wax walba Arsenal loo yaqaanaa mugto wax kasta oo la isla fahmaba la rababa Arsenal iskana hal loo leeyahay hadana dad badan marka waa magacii iska fududaaday ma aqaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadallada isbedelka hadallada ee aad ugu timid magaalada maxaa kamid ah magaalada nin horta dhalinyaro badan lama sheekeysan dhibta jirta magaalada waxyaabaha keenay in hadallo badan argo waxaa kamid ah landline ma laha xilligii hore guri kasta landline ay ku jiray waa Titanic waxay leedahay la fuuli jiray habeenkii waxaa laga yaabaa in 10 qof khad ay ku wada sheekaysato ama si gaar waxyaabo badan ku kordhay laakiin hadda qof walba mobile wata hormuud oo iska qaali ah waxay raddaxaysaa $1 goor u baxmad qanid marka hadallo badan ma jiraan teeda kale ma jirto dhalinyaro meel isugu timaado hadda dhaxgeliga ma jirto magaalada iska sida kale weli xogaa cabsi iska jirto oo dad badan oo meel isugu yimaada xataa aysan badneen in meel cafeteria ay waxyaalo waa ku soo waxyaabaha dad badan ay eedeeyay laba maalin markii magaalada joogay Facebook waxaan ku soo qoray waxyaabaha magaalada ku arkay waxaa ka mid ahaa lacag wada dollar ah haddana mobile laga isticmaalo waxyaabahan la yaaba ka mid taha haddana dhinac kale marka loo fiiriyo waa horumar weyn oo la gaaray ma aaminaysaa 2 isbuuc jogolishana Soomaaliya anima isticmaalin jeebkaygana kuma qaadan weli ma arkin sababtoo ah meel shinso wax weydiisaa yaanya haddii weydiiso waxa lagu sheegaa dollar waxa lagu leeyahay $1 wax kasta meel kasta dollar haddana telefonkii ku jirtaaba oo waa jirtaa Kenya waa laga isticmaalaa meelahaas M-Pesa loo yaqaan laakiin dhibka jirta aad looma isticmaalo oo waa lagu charge gareena haddii balance-iga fiirnaysid lacag ka goyso haddii wax ku gadatid lacag ka goyso haddii qof u dirtid lacag badan $1 ku dhawa ka goos marka qofku ma isticmaalo in oo xawaalad ahaan loo isticmaalo maana oo lacag la isugu diro oo lacagtaas wax ka go'day ma haysan karo laakiin inta lacagta dhan mobilka sala iska wata aan ugu fahamsiin qoladan nimca haye nimca gacantaaga geedo cawaala su'aal u qaba maadaama uu sheegay inuu EFC-ga isticmaalo lacag badan oo ka isticmaalo EFC-ga markuu dukaamanka meelaha tagayo wili sadaqa ma dhiibo qof haddii ay wax weydiisato laakiin kaalmay markaan sida Soomaali ma aragu yiri laakiin uma maleynay horta maba arkin ba dadka kulay ma aqaan aniga ma dhaqdhaqaaqayga yaraa inta badan horta lama lugay waxyaabaha la yaab kale kamid ah dadka airportka maalintan ka soo degay yarkii ila socday oo ay ku soo dhaweynay sadaqo wuxuu ku bixiyay EVC-ga wax xasuustaa marka dadka sadaqada qaata xataa waa wataan telefoonada oo EVC-ga way isticmaalaan marka waa wataan igu soo lagu leeyahay hadii arki lahaa marka ugu tuuri lahaa insha Allah inta yartan sii joogay hadii arko waa ugu tuuri doonaa
marka waxyaabaha kale la yaab kale waxaa kamid a cabdiqaadir dadku ma lugayaan kulli baawura la wataa حتى معناه dadka haddana waa wada darawal qof kasto qof aan baawurada aqoonin ma jira nimco xataa hadda way baratay ma aqaan oday xun oo reebaadiya Nairobi ka yimid aan noqoto waa isdhiibeen aniga laftirkeyga sababto ah cunug 14 jir ama 10 jir waxaa arkaysaa baawur waday wax kale iska dhaaf oday waa wadaa gabar waa wadaysaa qof kasta baawur wataa ma baawurta ma raqiis ah wadooyinka ma la hagaajiye labada qayb ka taa marka horumarka muqdisho ku talaabsan horumarka kamid taha dabcan horumar weyn waay weliba dadku waa kala shakiyey socodkii waa laga baqay cabdiqaadir xataa laba baawur leeyahay maxay daba socotaa maxay ii fiirinaysaa maxaa maaragtay aniga lambar 4 gaari aan uga degay hadda ka hor xilli aan idaacad ka mid idaacadaha muqdisho ka shaqaynayay oo xaaladuna ay aad u kacsaneed waxaan u soo socday dhinacan iyo soobe nin baa ilaahay amarkii hotel saxafi ka soo baxay waa soo socdaa anoo iska daba socda walba maayo dhagaxa ka leexda dhagaxa ka leexday waqtigaas ugu ay keenana daaq qaranka markuu marayo yiri duqa see wax u wadaade maxay daba socotaa markaas aan warba ma hayn baan inaan sooba u socdaa hadaa iga shakisay dhinacan kale aan maraa marka dadku waa shakiyeen okay marka lugtu waa yaraataa sababta ma la oran karaa cayilka waxa keena waxaasa kamid a marka waa kamid waa lugeynayay waa la socon jiray dhiid badanaa bixi jiray hadda waxaa waaye qof walba gaari iska saaraya sidoo kale koostarada suuqay ka baxeen ma aqaan waa baawurta BL-ka wada caasiya noqdeen bajaajka war bajaaj waxyaabaha kusoo kordhay kamid tahay taksiyaal wada buufsan muqdisho taxi noocyadii ugu yaabka badnaa waxaa kamid ahaa hello taxi sowac taxi waxyaaba badana ay dhaafin taxi marka marka horumar weyn waxyaabaha qurbaha laga soo faa'iiday kamid tahay way ka jirtaa adduunyadaas laakiin tirada ka badan tan bil qaran ka dhigan Soomaalida waa inta badan waa iska daba dayataa qofkii wax bilaaba taas oo jirto haddana sidii hore maadaama marka taxiga la isticmaali jiray markaad ka soo raacis xamurweyn oo kale oo aad rabtid number 4 waxaa laga yaabaa in lagaa qaato $20 ama $15 u giraa kii naxariis kuu fidiyo laakiin hadda waa bajaaj $2 taxiga laftirkiisa $5 naqdo marka taas naftirkeeda xataa waa horumar lagu tilaabsan halkaan akhrinayaa 2 qoraal 3 qoraal abshir waxa uu yiri waxaan joogaa Dharkeynley marka hore waan salaamaya walaalka Ibraahim Geedo Cawaale marka xiga waxaan leeyahay halka ka sii wada howlaha wanaagsan ee u haysid bulshada gaar ahaan dhalinyarada sportiga oo kamid yahay oo aad baan u jeclahay barnaamijyada inaan dhageysto Biba Super aad baa maasan tahay shaketi iyo dul yar waa in salaamay war shaketi maxaa laga daba wada aniga magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Nuur oo ku magac dheer Jabshe wuxuu yiri waxaan joogaa degmada Wartan nabadda qaasatan xaafadda Buur Hindi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu yimaado Super Biba Muqdisho waxaan qabaa in saxafiyiintu ay kaalin weyn ka waxaan qabaa saxafiyiin dhaxaa way imaan doonaan waa soo laabanaya insha Allah magacaygu waa Xasan Xaaji Cali Xasanay waxaan idin salaamayaa bahda iyo Bibo waa aad baan si gaar ah u salaamayaa goormaa kuugu dambeysay Muqdisho ayuu ka yiri waa su'aalan malaynaya qaybtii hore ku dhaaftay duqa aad baan wax maay waan weydiinataa ninkan kale waxa uu yiri bahda barkulan magacaygu waa Cismaan Cabdiraxmaan Cismaan Qoslaayo oo jooga Dharkeynley Muqdisho waxaan weydiin lahaa Bibo ma booqatay garoonka kubadda cagta ee Muqdisho haddaase u kuur gashay maxaa kaaga baxay inay kubaddu heer caynkee ay isleedahay way ka qaadan kartaa ka qaybgalka tartamada qaaradda Afrika dhinaca ciyaaraha laakiin garoonka maanu sheegin ma banaadir baa misko horta saad Muqdisho ma tagtay Muqdisho ma tagin sababta wali waa tagtay كونس طبعا واركت horumar weyn ayaa ka jira galabtan ciyaarada ka jirta marka horyaalka waxa uu kamid yahay waxyaabaha horumarka magaalada laga gaaray kooxihii wada adkaaday dabcan عيال dhalinyaro ajnabi ku aragto nadiidan waa ciyaaraya oo la soo gata leeyahay Soomaaliya ciyaartay soo gata si fiican waliba waa shaqaysan raga isfahameyno waayo oo isku meel aan ka nimid waxa ka timaadeen staff isku luqadana marka garoonka waa la hormariyay aadan u mahadsan yihiin FIFA oo mashruucaasi dib u dhiska bixisay xiriirka kubadda cagtana ay fuliyeen oo marka hadda wuxuu egyahay standard caalami ah markii aad joogto xataa yaani inaad joogto umleynaysid ugu dhawaan ka soo qabtay gabadha Isxaaq keen jaamac waxay tiri magacaygu waa Isxaaq waa wiil Isxaaq sorry ma aqaano gabar iyo wiil wuxuu yahay waxaan joogaa Boosaaso laakiin waa salaamaya Super Bibo waxaan weydiin lahaa qurba joogta waxa lagu eedeeyaa inay qalalaase ka dhex qayb ka yihiin arinta ka waran adiga horta qurba joog miyaa tahay
maya laakiin asxaabta mararka qaar xafalena diaspora ma aqaan diaspora waxa laga wado laakiin anaga qof kasta oo foreign forecast inkaas ma teed inkaasona mar haddii back to home aan laabo mar haddii aan soo laabno laakiin hadda qurbo joog waan nahay laakiin qurbaha kala roon meesha aan joogno anaga waxaan u naqaanaa qurbo nacseed aad iyo aad hadda gabadhan boosaas waxay leedahay qurbo joogta hadday soo laabato marka qurbo joogta ku dhibkooda waa ku qurbaha fog ka yimid barafka ka daa aad iyo aad madaxa wada xiran leh anaga weli waa roon nahay inkastoo maalmaha qaar qorax aysan noo soo bixin kuleelan arkin laba bilinaad magaalada kuleel iyo bor iyo bus la socotaba magaalada waa ka jirtaa islii ka war islii bor kama jiro aad ba nadiif tahay soo maaha bismillah waa laga yaabay waxaa waaye clean waay dhinaca sugaanta waa hagaag qaybihii dhexe barnaamijka ama gabagabada ayaanu soo gaarnay cabdulaahi deeq daahir wuxuu yidhi adiga iyo weliba subarbiba aad baa idiin salaamaya waxaan su-aasha aan weydiinaya waxay tahay matoos ayaad noogu soo wareegtay mise howlo shaqo ayaad u timid maxaase aragtay oo adiga aad la yaabtay inta aad joogtay haye waa su-aalo badan oo isla daba socda mamay waa baxayaa howlo shaqaan wey mid waxaa waaye waqtiga shaqada hadduu dhamaadana waa bixi doonaa insha allah waxyaabo kale ku yaab badnaa ma ku jirto su-aasha waxyaaba badanaa jira horta magaaladan ku arkay wax ka hadashay nimco wax badan waa sheegay waxyaabaha kale waxaa kamid a magaalada iskuulaadka ku yaraada jaamacadiha ku bati laba boos kasta jaamacad waay laba boos kasta jaamacad qof kasta aragtid arday kasta jaamacadan dhigtaa ku dhahay marka waxaa waaye horumar waaye dhinac markii loo fiiriyo dhinaca kalena waxay u baahan tahay foodo habeen in loo sameeyo oo jaamacadaha standard caalamiya in lagu saleeyo gabdhaha magaalada waa shidantaha magaaladeena markasta waa shidneed allah barakeeyo hal midaa gabdhaha kusoo korortay gabdho kubadda cagta waxaa ku ah loof soo taaf 6 sano kahor magalada markaan ka tegaya ma jirin aan u malaynaya gabar kala garanaysa Premier League iyo Serie A ama La Ligue farq u dhexeeya xilligan aniga waaba laga badiyaaba oo idaacadaha ka hadla heblay Manchester hadda oo Manchester taageerto gabdho idaacadaha ka hadla gabdho isku xifaaleeya waxyaabo arka waxa kamid ah jaamacada ay dhaxlasaantay gabdho iska sheekaysanay 3-4 oo hadda lafaha isag dhigay Nasri inoo Arsenal ka soo taga maahayn waxa laga sheekanayaa wax macnaha xataa jirto oo serious ah oo dhalinyarada qaar xataa aysan fahmi karin oo ragga ah marka waxa dareemaysaa inay si hoose ula socdaan oo sida loo kala sareeyo dhibcaha qaabka loo kala dheelo waxyaabo ay waxa kamid ah ruleska Champions League iyo liiga ama horyaalka iyo koobka isku sharci looma dheelo koobna waa knock out oo kooxo la soo kala reebo halka wax koob qaado waxna waa league oo maanta iska dawreego dhibco xataa wala kala fahamsan yahay oo sharciyada waxa la fahamsan yahay away goaliska la yaqaano aggregate-ka hobsadka la fahmayo waa macnaha horumar weyn marka dhinaca kale waxaa ka maqan gabdho ciyaara in la helo madaxdaas waxaan joogay kongareeska xiriirka kubadda cagta oo lagu soo bandhigay budget loogu talagalo FIFA ugu talagashaa jira oo kubadda cagta dumarka lagu horumariyo waa celinaya dheen lacagaha loogu talagalo marka waa inay geliyaan gabdhahaas taageera kubadda cagta ku ciyaaraan qamarkooda waxaa arkaysaa Facebook iyo commentiyada iyo markaa aqrinaysid ama ku gabdho magacyadaas wada leh heblow Barca heblow Arsenal Manchester Ozil magacyo la baxeen Messi si Eblay si Arsenal marka waa bulshada Arsenal aniga halay soo socdo adiga Arsenal hadda waa tahay Xasan Kabito waxa uu yiri barkulma wada salaam magaciga Xasan Buul suudo wada jir soo barbiba waxaan weydiin lahaa Man United dhibaatada gul darrada ah yaa sabab u ah waxaan barnaamijka xalay anaa qabtay wuxuu u badnaa maxaa sabab u ah guuldaradaasi adiga xataa waa ka qayb qaadatay marka waa waqtigeeda macallin qabiir waaye laakiin mushkilad unbaa iska haysataa jornatanere dhahan talyaanigu talyaaniga jornatanere dhahan intay qabsatay ha loo duceeya la jiray waxba waxay tagi jireen kaniisado iyo waxaas iyo marka lagama yaqaan ingiriiska jornatanere iyo waxaas iyo waxay yaqaanaan tababaro la bursho mas-uul lagu kaco wax noocaas iyo ciyaartooyda dushana marka Manchester isbedelka sabab ah ownerskooda laakiin waa dulqaad badan yahay ownerskooda intaan macalinka oo milkiilaha Chelsea ma dulqaadan lahayn
ma dul qaadan lahayn laakiin nimankan waa qoys reer galaasar ayagaaba lagu kacsanaaba oo hadda qoys active oo shaqeyn waa lagu banaan bixi jiray marka maayis 6 sano sax dhadheel lagu buri karo mushaar badan waa qaatay barkul waa salaam dulyar iyo ibraahim iyo nimco iyo atooraha si qaasa waxaan u salaamayaa waxay tirisadka wuxuu yiri ninkaas nuur waxa magacayga waa nuur maxamed salaad waxaan joogaa wadajir runtii aad ayaan u taageerayaa bibo waxaan leeyahay welcome muqdisho waxaan weydiin lahaa xilliga duqaynta muqdisho ma joogtay haddaad joogtay farqiga u dhexeeya waqtigaas iyo hadda duqaynta ma fahmin ma dagaaladayba ka wada fuuriyaaga waxa lama joogo oo xilliga Ethiopianka oo magaalada qayb ka mid ah xataa dhulka in la sinma u maleynaysa marka waa isbedel weyn jira hadda xilligaas Iraq iyo Syria aad uga fiirsadaa arrimahaas waxa la yiri waxyaabo laga faa'iido waxa kamid ah fuuridiisa hadii aad maqasho waa ku dhaafo waxba nixin markuu kugu dhacay fuuridiisa maqlayso argaaba gooyabe argaaba gooyabe soo waata dul adiga sabiga Ibraahim Maxamed Cabdo waxa weey ninkan waxa la yiraahdaa Hadraawi waxaan joogaa Kaaraan qaasatan xaafadda wuxuu yiri FC Banaadir Star wallahi Ibraahim waa runta Muqdisho salaxyo badan ayaa laga furay Muqdisho mid kale dhalinyarada qurba joogta ah urniga qurba joogtan maxaa waxaan gaarsiin lahaa fariin ah waayo Muqdisho wax weyn ayaa iska bedelay marka waa soo dhaweynayna dhalinyarada inay soo laabtaan laakiin qurbaha noo kala soocan Nairobi dadka yimaada qurba joog maaha barnaamijka magacaygu Cabdiraxmaan oo jooga Horwaay su'aashan weydiinayo sidee xamar ula muuqatay geedo waa taata waa gadanay Cabdalla Karaam oo jooga hodan KBB taageera sharafeedka Arsenal bibba waxaan waa wariye Soomaaliyeed wariye isboorti aad ayaan ku salaamayaa dhammaan barkulan waa idin salaamay magacaygu waa Cabdiraxmaan Tababare waxaan soo dhaweynayaa Muqdisho wariyaha iyaga super bibbo saaxiib arrimaha bulshada iyo dhanka isboortiga maad isbedel aad ka dareentay inta joogtay Muqdisho dadka waxaad moodaa inay meelo badan ku rafanayaan Xasan Shaata wuxuu yiri aad baan u salaamayaa su'aal intii aad joogtay Muqdisho maxay ahayd daarta ugu dheer ee aad ay indhahaagu arkeen walla tan waxay u eg tahay tii Nairobi aad siraahdo ma aragtay daar ama guri aad siraahdo wala su'aalaabta Nairobi ma Nairobi nagu guri dheer laakiin ma yidhaa anaga dhaadheeriin dhul ahaan sida la sheegay aniga juqraafi ma aqaan laakiin dhowr iyo 10 biyana lagama dhisi karaa lahaa dhulkan xamar iyo ma garan karo Nairobi waxa arkaysaa 100 biyana ku dhawaade inta hormuud inay ku dheertaa umaleena inta arkay aniga dabcan inta hada barkulan waa Maxamed Axmed oo jooga Kenya qaasatan Kakuma Arkam wuxuu yiri Arkam Aris Baro wata Kakuma xirada qaxootiga xirada qaxootiga الله صوبه واسده xaaladda Muqdisho xagga amaanka iyo sida dhalinyarada ay ku nool yihiin maxay qabtaan dhalinyarada maxay ku fikiraan maxaa ugu fiican oo aad ku soo aragtay Muqdisho hortalo business baad ka faran rabtaa saaxiib waa su'aalo oo dhinaca ganacsiga aad moodaa haye waad ka jawaabtay inta waxaan malaynayaa inaad uga jawaabtay saaxiibkeen waa ku mahadcelinayaa inaan baa qoraal dheer soo qoray Fuad bahda barkulan magacaygu waa Fuad Cabdirasaaq Geelle waxaan joogaa degmada Wadajir xaafadda Sportiska ee Buursaciid marka hore saaxiibka Ibraahim Geedo Cawaale waxaan leeyahay salaama kadib waxaan weydiinayaa Muqdisho waa imaade Ibraahim Muqdisho maxaa ku aragtay dhanka iyo isboortiga maxaa kula yaabadna waa isla su'aalay waxaan kala weydiin lahaa isboortiga Kenya iyo kan Muqdisho maxaa farqiga u dhaxeeya garoomo badan halkaas ku yaala kanse hal xabaan isugu tagno Soomaa waa salaamantii baad barkulan naamkaygu waa Cabdicasiis Boqorka Baska waxaan joogaa Muqdisho degmada Hodan ninka maxaa meesha keenay Muqdisho meel la imaado ma ahayn aniga waxaan weydiinayaa markaad timid xamar maxaa ka yaabiyay adiga waa joogtaa Cabdicasiis ana u jawaabay saaxiib waad salaamay adiga dulyar shakeetay atooraha waxa dhan nimco martida geedo waa Safiyo oo ku sugan xamar weyne waxaan weydiinayaa sidee kula muuqata xaaladda xamar waa fiicanta basha ana u jawaabay inta caadiga ciyalka xaafadda dhan magacaygu Cabdullaahi Bidaaye oo ku magac dheer Cali BM waxaan joogaa xaafadda Tokyo degmada Yaaqshiid waxaan weydiinayaa ma kula tahay meeshii shalay magaalada ka shidneed biri inay ka shidnaato adiga halka faraha ku fiiqay shalay ayay ahayd meeshii shidneed inay maanta dansan tahay laakiin biri iska shidmaysaa waa wixii ku koon caday birida xamar laga hayo ma waxaan rajaynaynaa markaa inay isla wada shidanto meel kale yaan la dabinin waa tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii soo gabagabaynaynaa nimco su'aal iyo haddaad weydiinayso welcome waxaan malaynayaa maanta loo soo baxbaxsanaysay su'aashaan weydiinaya waxay tahay bibo maadaama oo magaalada Muqdisho uu yimid
taleefanadiis inta badan way dansiyihiin ya taleefanadiis inta badan way dansiyihiin marka waxbaa koos garay inuu damiyo isagaa weydiina maxaa taleefanada u damay anagta wana shidan yihiin muqdisho labadii maalintii ugu horreysmay maalinta labaad qof baa yaraa inta wacay oo iga qaban waaya telefoonka message aan u qoray waxaana Ibrahim Geedo magaalada Kurujo iga qabo markaasuu soo qoslay soo markaasuu wuxuu yiri hal maalin magaalada joogta durba horaa ka fahamtay magaalada telefoon la iska qabto ma aqaan telefoonka dubu qofka u saf gareysneen waa lagu dhageysanaa ilaa message aska hormariso marka hadda go'aanan gaar qof hadda wacay message aan ka sii hormariya laakiin Ibrahim Geedo soo wici raba ee ka qabo sabab ma ku sheegay ma aqaan waxa way Soomaalidu waxay tiraa meel ilaa haddii aad tagto isha la iska tuuraa anigu waa fahmay marka horaan kala dhaqmo automatically marka taleefanka waa damisaa dam ama ka qabanin haddii uusan saf garasnin message hal soo dir mararka qaar ma dhacdaa in xawaalad iyo waxaas soo wacaan aad aqoon lagugu daayo maya waqti xawaalada soo wacdo maba jooginba mana joogin laakiin dad badan ku raadinaya ma kugu daaleen aslada wallahi dabcan waxaan rajeynayaa dadkii intii weerarku iska badnaa sababtoo magaalo in badan ka maqnaan asxaab badan ay jirto oo family leh saaxiibo hore leh ciyaalka xaafadda leh asxaabtii saxaafadda leh wax kasta leh waa iska fara badan yihiin oo kulli lama wada arki karo laakiin ilaa xad intii laga gaaray waa la is arkay dabcan inta aad tagtay marka isbedelka ka socda waad noo sheegtay ma ku sii weydiiya marka su-aal ku saabsan inaad hadda sii joogayso inaad baxayso taas waa hadba shaqaday ku xiran tahay laakiin magaalada laamiyadii waa loo dhisay waxaa la yidhi waay qeybahan kale loo dhisi waaya markaa dhowr qof weydiiyo waxaa la igu yidhi Turkiga intii ay isticmaalaya inay dhiseen inta kale waxaa laga rabaa inay dhisaan Soomaalida marka waa waxaa ma aqaan nimca igaga xil dheer arrimahaasi wadnaha iyo soddonka haddii la dhiso waxaan umaleynaa magaalada inay aada isku qabsan doonto wax walba process ku socdaan hadda maadaama ay dhisayaan wadada Makaal Mukarrama degmada Cabdicasiis wadooyinka maro Madiina wadooyinka gala marka la soo dhamay dabcan waxaan rajeynayaa inaad deegaanadaasna wadooyinka la dhisaa waxay fududeynaysaa socodkii oo fududaada baabuurta sii badato marka darawalo badan ay helno nabadana ay sii ziyaado hadii marka baawuro badan waxaa jira magaalada Muqdisho dulin hadaa ku darsado aan istaageen xataa dad meel taagan tahay in lagu istaajiyo ka yaabin ma faraha ma lift lisma sii Muqdisho ma faraha ma firis sama faraha hal meel ayuu ku dhagan yahay umaleynaa dabcan Maxamed Daawud Cumar Arjan oo wuxuu yiri xisaabta barkulan waa salaamay dolariga toora iyo sidoo kale nimcay martida barnaamijka magacaygu waa Maxamed Daawud Yumbi oo loo yaqaan Arjan isla markaana jooga Holland magacay badina Yumbi iyo Arjan aad baan u salaamaya saaxiibkay way wuxuu yiri Geedo waa salaamaya waxaan weydiinayaa ciyaaraha kooxaha uu taageero intaas baan weydiinayaa aad baan u salaamayaa xisaabta waad ka wareegtay laakiin dhinacan Everton AC Milan Italia Everton Ingiriiska Valencia dalka Spain Valencia hadda ma yakin Vicente Diego Lopez iyo ciyaaraha marka daadihinayso see ugu cadaalad fadshaa ma shaqadu iyo taageernimada laba kala tahay shaqada professional taa wixii jira waay war wixii jira marka waxa laga yaabaa adiga inta warka akhrinaysid inaad taageertid madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha marka khilaafka xataa qof iska taageersan yahay laakiin xaqiiqda war ah ma xaqiiqda barnaamij ah taas waxa waa ka waran hadda Roseneer xaaladda ku xuntahay dad badan waxay weydiiyaan hadda ma ku arko magacan Super Bibo halka uu ka yimid dad badan oo Milan taageeri jiray way garan karaan Super Bibo hadda isagan ka dhigi rabnaa tababare waa Filippo Inzaghi weeryahanka caatada dhacdo marka aniga isagoo kala ah waaga yaraa waa nooba farta ka xiran hadda duqoobasho loo aragtay waa macna farta ka xiran macna aan la celi karin Messi Ronaldo sida diin amal farta ka xiran Super Bibo Inzaghi labaduba ka tarsanaa Messi Ronaldo marka xilligiisa la fiiray ninka baxar waa Champions League marka ay timaado big match marka ay timaado sempre attenzione loo leeyahay calan wadaha waa taagan yahay waa inuu heegan ku jira hadii jar hadii la waa yaqaan markuu dhunto Zinedine Zidane waxaa la weydiiyay ugu jeceshahay noobay ugu jeceshahay adduunka la markaas wuxuu yiri Inzaghi Madrid uu ku sugnaa xilligaas waxaa la yiri waay Ronaldo la dhashay waa Dalima la dhashay Unreal la dhashay oo Del Piero markaas wuxuu yiri marka kubadda hayso hobseedu ku jira markii aad tuurtidna waa ka baxay already waa xarif shabaqan waa gool marka AC Milan waa Inzaghi hadda tababaraha kooxda labaad ee Serie B kooxda segundada hadda Allegri hadii laga wareejiyo Bibo loo soo dalacsiyo Milan
marka farta ka back on the road soo laaban laakiin hadda ma isleedahay meel aad u khatar ay ku jirtaa aad u weyn ayada iyo Valencia kooxdeeda kale waxa waa ka taalaa laakiin kubadda cagta hadda dhaqaale isku noqotay waxa waa isbedel badan in la sameeyo Ingiriiska u wareegtay baash laakiin xamar oo dhan waagi hore ziraayad xilligan waa taqaanaa Talyaaniga ma la taageeraa islada meesha Talyaaniga khadku ka baxay horyaalkii laga sheekeenay gabdhihii ka sheekeenay kulli waxa waa Ingiriis Premiership hawadu naga qabsaday sababtuna waxa waa aaladan saxaafadda waa la isku dilaa Ingiriiska adduunka waxay dheer yihiin saxaafadii iyo dhaqaalihii wadankooda oo la furfurayo oo ajnabi ay gadan karaan kooxaha ajnabina ay ka ciyaari karaan xornimad ma ka jirto Italia waxaana dilay waa dhaqaale xumo oo kooxii financial problem wadanka ka jirto siyaasadda dhinac kasta iyo fadeexadahan kala shiibool iyo Talyaani tuugnimo ma dhaafana leen wixii ma fiidi faraha badneeda wixii adii 2003 wixii ka dambeeyay kubadda cagta waxay u wareegtay Ingiriiska hadda Jarmalka u sii wareegaysa iyo jacaylka ka waran bal jacaylka iyo Muqdisho waxa way hadda maxay kaaga shaqeeyaan dhalinyarada hadda wuxuu u wareegay WhatsApp waagi leen oo ahaa breefad iyo meel iyo hadda WhatsApp waxa way qof kasta telefoon baawr haduu saaraya meel haduu joogo jaamacadaha xataa waxa la yiri ardayda macallinka xusada ku maqan hadda in telefoonada la damiyo sharci in laga dhigaa ficnaan lahayd sababtoo ah waxa way jacaylku wuxuu u wareegay halkaas inkastoo aan weli aan u sii kuurgelino shaqeeyay aga ficnaan lahaa in la keeno digataada ugu dheereeyaa su'aashan u qabo waxay tahay geedo inta badan wuxuu sheegay ama inuu taageero ciyaartooy oo dalalka Yurub oo kale ama Spain iyo meelaas Soomaaliya maxaa loo waayay in saxaafadda Soomaaliya ee door muhiim ah ka ciyaaraan sidii ay u soo saari lahaayeen ciyaartooyda qaranka dalka Soomaaliya barnaamijyaas oo kale loo qabto waa soo saarnay 100% waxa waaye horyaalka Soomaaliya warbaahintan aad u tabisaa aniga ka barkulan ahaan hadda waliba waa balaarinay barnaamijyada sportiga shaqada lagu dir maalintii iyo habeenkii labadaba waa la soo daayaa oo haddana sida hore loo saalax buu sheegayna waxaan rajaynaynaa barnaamij maalin la bilaabi doono oo gudaha diiradda lagu sii saari doono marka horyaalka Soomaaliya kaalinta koowaad ka jira idaacadaha Muqdisho badankooda waa ay tabiyaan TV-da sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaa sida Premier League aan gaarsiino horyaalka Soomaaliya ajnabi ay ka ciyaaraan marka waa wax kale maxaad fariin u diri lahayd marka dhalinyarada iyo qolada Nairobi maxaad oran lahayd Muqdisho waa sidee maxaad sawir ka siin lahayd Nairobi markaan u laabtaan u sheegi doonaa insha Allah laakiin hadda kulay intina dhageysanaysa oo ama satellite ama internet nagala socoto xagga FM ma laha dabcan waxa way qofkaan xag waxba ku heen halkan iska yimaada laakiin inta badan xag mashruuciyaal loo joogaa oo Nairobi waxa la yiraahdaa waa magaalo bad ah oo ninkii dan u joogo kulay kaamiyay laaba hadii aad dhahay xataa laakiin kiyan waxba ku heenin xamar iska yimaado waxa way xamar waa shidan tahay xariiftankeeda badan xamar xariiftan meelaha kale xoog waagaag nimco aad baan idinku mahadcelinayaa adiga iyo Ibraahim Geed Dacwaale barnaamijka guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa inta igala qayb qaadatana waa mahadcelinayaa atooraha oo barnaamijka daadihinaya isagana waa u mahadcelinayaa dib intaan ugu kulmi doono bye bye